waxaan indhahayga ku arkay musiibo iyo argagax oo naf iyo maal leh oo qof bini aadan marnaba weligii qiyaasin ama arkin marka waxa kugu soo dhacay ugu horeyso waxa ay tahay waa in wax alla wixii aad qaban kartid oo gurmad ah aad geysataa wixii naf aad u daadin kartid ku dadaasha aad geysataa laakiin haddana waxaan xasuustay itaalkeena iyo awoodeenna inay intaa ka yar tahay oo aysan ku filnay inaan wax qabanno musiibo ahaan waa inaan marka hore u fiirinaa waxa dhacay iyo dhibta meesha ku dhacday iyo markaa waxa qofka la gudbay inuu qabto ay tahay ay ah in naf la badbaadiyo waxaa jirtay in dad badan ay ku hoos jireen burburkii dhismayaashii halka ku burburay ma jirin miya qalab loo adeegsan karay si dadkaasi loo badbaadiyo alxamdulillah dad badan waa laga soo badbaadiyay burburka hoostooda ayagoo nabad qaba laga soo bixiyay laakiin wixii laga soo badbaadin waayana waxaa la xaqiijiyay in qofka meesha uu ku jira la soo bixiyo nolol iyo geeriba intaba lagu dadaalo sidaad ogsoon tahay Soomaaliya dal dib ku soo dhacday dhowr sano muddo sano ku soo jiray waxaad qiyaasi kartaa inta ay la eg tahay agabkiisa gurmadka in uu yahay mid aanan isku filnayn oo marka diyaar garowga loo diyaar garoobay iyo waxa dhacay marnaba wax isku dhigma ma ahayn laakiin ilaahay mahadii gurmadka ummadda Soomaalida iyo jawaabta ay ka bixiyeen dal iyo dibadba baa samata bixisaan isleeyahay marka saaban markasta waxaan iraahdaa waxa dhacay waxay ahayd musiibo qaran waxa raacday gurmad qaran waxa looga baxay midnimo qaran waxa maalmihii uu gurmadka socday la aqoonsan waayay dad badan oo meyd ahaa markaasna waxa la sheegay in aysan jirin shay baar lagu baari karo DNA ama dheecaankooda si loo kala aqoonsado qaraxii kadibna waxa socday qorshe ah in la sameeyo shay baaro lagu aqoonsan karo hadii ay waxyaabo caynkan oo kale ay dhacaan dadka dheecaankooda ogaalkaagii halkee buu ku dambeeyay qorshahaasi waxa jira qorshe isagana inta aysan dhicin 14 Oktoobar aan diyaarino ahaa maadaama magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir afar qaybood 17 degmo loo qaybiyo in qayb walba ay lahaato xarun gurmad degdega oo isku filan oo la tacaali karto masiibooyinka dabiiciga iyo dadka bini aadanka waxay sameeyaan masiibo ka soo dhacay la tacaali karto qorshahaas uu jiray qorshihii ogaanshihiga marka ka soo tagnay kadib afar qaybood bay ahayd qayb baa hadda la sameeyay kuwa kalena waxaan rajaynayaa in la dhameystiri doono waxa soo haray arrinka ku aadan DNA-da iyo blood bankiska ayadana runtii dadaal dheer baa laga geystay laakiin waxay dabcan su'aasha iskala jawaabteeda maamulka jooga hadda qaraxii kadib waxa aad xiratay maradan cas ee gacanta kuugu xiran ilaa iyo haatanna waad xiran tahay goorma laga yaabaa inaad dhigto waxaan ogahay aniga calaamadan xusuus qaran bay iga ahayd waan qiyaasi karaa inay uur ku taala tahay oo dadka uur ku taala tahay insha Allah ta'ala maadaama xusuus qaran ay tahay maalinteeda ay ku haboontahay aan furi doono hadduu Allah markii uu gurmadka dhamaaday ma jirtaa cid lagu la xisaabtamay wixii dhacay hay'adaha markaas ku shaqo leh baaritaan way fureen oo baaritaanka way bilaabeen waxaadna ogtahay mashaqo inta la eg in la baaro oo ay waqti qaad oo in la baaro waqti ay qaadanaysaa intii anaga aan joognay markaas waxaan ku raad joognay umad qofka dhibka ku dhacay si kasta loo gurmado wax ka wanaagsan cadaalad ma jirto qofku waxa deeqda cadaalad baa deeqda runtii oo wax walba kaga filan marka maadaama baaritaankii waqti qaatay waxaan isleeyahay waxa iska leh aniga markaan ka soo tagay wali marka lama soo bandhigin waxa iska leh hay'adaha jooga ee ku shaqo leh inay ka jawaabaan